dunida aynu maanta joogno waxaa maalin kasta ka dhaca dagaal aan la isku adeegsan hub aan la isku adeegsan ciidamo laakiin hubka uu weyn la isku adeegsada uu yahay maskaxda aadanaha waa dagaalka sirdoonka waa dagaal ay ku jiraan rag iyo dumar fara badan oo aan astaan iyo wax lagu garanayo aan lahayn oo hubka ugu weyn ay sitaan tahay qarsoodida ay qarsoon yihiin waxaynu maanta mawduuceenan ku faaqidi doonaa mid ka mid ah hawlgalladii ugu caansanaa ugu xasaasisanaa uguna awoodda badnaa ee qarniga 21aad waa hawlgalkii ay Israa'iil iyo sirdoonkeeda Mossad ay ku laayeen ay ku kharijiyeen saynisyahanadii ugu fiicnaa ugu tayada badnaa ugu awoodda badnaa ugu khabiirsanaa ee soo maray dalka Iiraan kuwaasi oo ku hawlanaa kana shaqeynayay diyaarinta iyo bacriminta iyo kordhinta iyo taabagelinta iyo dhamaystirka barnaamijka nukliyeerka Iiraan oo ay Iiraan muddaba ku tahmaysay inay noqoto quwad nukliyeer intaynaan mawduuca qodobadiisa ugu muhiimsan aynaan u galin bal waxaynu dul istaagaynaa Iiraan hubka nukliyeerka ah iyo marxaladaha la soo martay sanadihii 2000 Iiraan waxay si qarsoodi ah u bilowday barnaamijkeeda nukliyeerka ah laakiin caalamka reer galbeedku kuma u baraarugsanayn inay Iiraan sameysanayso hubka nukliyeerka wax kumaada waxay moodayeen oo aaminsanaayeen inay sameysanayso ka laga dhaliyo elektriga iyo tamarta laakiin sirdoonka Israa'iil waxa uu helay xog oranaysa in Iiraan si buuxda ay u diyaarinayso ugu socoto inay sameysato hub nukliyeer dhammaan wadamada reer galbeedku markay xogta heleen ay isgaarsiiyeen waxa Iiraan la dul dhigay amar ah inay joojiso sameynta hubka nukliyeerka ah qiimo kasta oo kacaba laakiin su'aashu waxay tahay sidee loo joojin karaa barnaamij qarsoodi ah oo ilaalinayaan boqolaal sirdoon kumanaan askari iyo dawladda Iiraan oo dhan jawaabtu waxay ahayd mid ay kaliya ka jawaabi karto sirdoonka bahalnimada ku caan baxay ee Mossad la yaqaan waa sirdoon daaha gadaashiisa ka dagaalama oo aan la ogaan karin oo awood qarsoon oo xadidnayn leh sirdoonka Israa'iil markiiba waxay diyaariyeen wax loo yaqaano blacklist amba liiska madow kooxda Mossad waxay soo saareen liis madow oo ay ku jiraan 15 saynisyahan oo Iiraaniyiin ah oo ugu weyn yahay saynisyahankii sida cajiibka loo dilay ee Muhsin Fakhrizadeh 15ka saynisyahan waxay ka shaqeynayeen cilmi baarista nukliyeerka mid ayaa xogtooda loo ururiyay gurigooda iyo goobta ay ka shaqeeyaan jadwalka safaradooda ilaalada ay wataan xitaa wadada ay subax walba maraan ayaa aad loo dabagalay oo xogta inta la soo ururiyay waxaa la dhisay shabakad gudaha Iiraan ku sugan oo ka kooban dad maxalliya oo Mossad u shaqeeya laguna magacaabo Cells of the Shadow halkaas ayuu qorshu ka bilaabay dilalkii ugu horeeyay ee loo geystay saynisyahanada Iiraan waxa uu bilaabmay November 2010 magaalada Tehran saynisyahan lagu magacaabo Majid Shahrari ayaa subaxdii gaarigiisa isagoo wadanaya markii uu istaagay wadada bartankeeda ee nalka casbaxay nin mooto wata ayaa soo xirtay afka ban magnetle ayuu ugu dhajiyay gaariga laba ilbiriqsi kadibna qarax xoog leh ayaa dhacay saynisyahankii Majid ahaa waa uu dhintay isla maalintaas saynisyahan kale oo loo yaqaano Faredium Abbasi ayaa la weeraray laakiin nasiib wanaag waa uu ka badbaaday Iiraan waxay ku eedeysay dilalka loo geystay labadaasi saynisyahan ee midna badbaaday midna la dilay inay Mossad ka dambeysay laakiin wax cadayn ah oo ay keeni kartaa ma aysan jirin hase yeeshee gudaha Mossad waxa aad loogu dabaaldegay hadafkii koobaad in la gaaray cabsina waa la abuuray waayo mar walba oo sirdoonku aw hawl gal fuliyo taxadirkiisa ayuu aad u sii kordhinaya waxaynu imikana dul istaagi doonaa Muhsin Fakhrizadeh oo ahaa bartilmaameedkii ugu weynaa ee sirdoonka Mossad bartilmaameedsadeen
waana madaxii barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Muxsin Fakhri Saada waxa uu ahaa maskaxda mashruuca. Madaxweynaha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu yidhi xusuusta magacaas Muxsin Fakhri Saada mar uu la hadlayay golihiisa wasiirada ayuu wuxuu yidhi xusuusta magacaas Muxsin Fakhri Saada waa ninka ugu khatarta badan dalka Iiraan. Sanado badan Mossad waxay ku raad joogtay oo ay aad u raadinaysay Muxsin Fakhri Saada. Waxaa lagu tijaabiyey isku dayo badan oo fashilmay, laakiin 2020 kadib sanado badan oo qorshayn iyo baadigoob iyo qorshayaal fashilmay ahaa, waxaa la helay fursad. Hawlgal sir ah oo dunida ka yaabsaday ayaa la fuliyay la dhaqaajiyay. Sidii u dhicin wax maalintii hawlgalka ee la dilay Muxsin Fakhri Saada waxay ahayd 27 Noofembar 2020 magaalada Absard ee tuulada Tehran. Fakhri Saada iyo xaaskiisu waxay ku socdeen gaari Nissan loo yaqaan, iyadoo ilaaladiisu daba socdaan. Jidka dhinaciisa waxaa la dhigay gaari bakhtiyaa nasiib ah oo ay ku rakiban yihiin qori automatic oo lagu xakameeyo satellite. waa qori au saaran gaari au saaran yahay qorigaasoo laga hagay satellite-ka oo meel fog laga hagay oo leh kamarad aqoonsan karta wejiga qofka. Qorigan waxaa gacanta ku haya Mossad kumanaan kiiloomitir oo aad uga fog meeshaas. Sirdoon Mossad oo jooga ayaa gacanta ku haya. Markii gaarigiisa Nissan-ku uu soo dhawaaday, kamaradii waxay aqoonsatay wejigiisa. Qorigii ayaa si toos u toogtay rasaas kaliya, hal xabad ayaa lagu dhuftay. 10 ilbiriqsi gudahood ayuu nafta ka baxay. Nissan-kii sidaas ku guday. Xaaskiisii lama dilin, ilaaladiisii lama toogan. Qalabka ayaa isburburiyay si aan raad loo helin. Gaarigii lagu dilay iyo qorigii lagu dilay halkaas ku baaba'een. Mawduuceenan maanta intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa. Mawduuca xiga waxaynu kusoo qaadan doonaa fariinta ay diraysa arrintaas. Waxaan kaloo kusoo qaadan doonaa mawduucyo kale oo xasaasiya oo ka hadlaya sirdoonka. Intaynu mawduuc kale ku kulmi doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.